kale ma arkin oo ma kama shaqeyn ismaradii awaarihi ebel xoolo suuq baan dhimaan jirnay suuq xoolaha aan ka gadan jirnay xisaabta aan gadan jirnay inta aan gadan jirnay nin uu gadan jiraa hadda imaata inta waliba caata oo ilaahay kuma darnaaday intana beecaan ka joogin xagga meesha la geeyay Nairobi aan geysanayna aan beecaysan lahayn neefka oo looda neefka oo hoos waxa la siin jiray 28 saacadan hadda aan taagnayna looda waxa joogtaa 10,000 kii gadanayana wax ka mehelay kii keenayana waxba uma faa'iido marka salaawliyada geela wuxuu ahaan jiray 90,000 100,000 55,000 haddana 15 buu joogaa meeqa maqan meeqa qasaare way marka kii keenana waa qasaaraya kii qaadayna waa qasaaraya way imaan jireen haddana wax ka imaado ma laha intee ka imaan jireen waxay ka imaan jireen salagle Ismaaya afmadow kabtaas ka imaan jireen haddana wadada xoolaha abaartooda xagga laga soo gado dhaxday ku dhamaanaysa ma soo gaaraysa gaarto wixii soo gaarna waxaan ma lahayn soo imaanaya waka neefka oo looda neefka oo hoos waxa la siin jiray 28 saacadan hadda aan taagnayna looda waxa joogtaa 10,000 kii gadanayana wax ka mehelay kii keenayana waxba uma faa'iido marka salaawliyada أنا محتوى جلسة وبعدين. waxaad ka mid tahay ganacsatada looda bal hadda iiga waran suuqa waagi hore iyo hadda sidoo kale yahay waagi hore iyo hadda aad bay kala ceen u yihiin intii imaani jirtay waagi hore hatta nuskeeda wali ma imaanin wallahi bilaa lacagta marka dadkii waxa haysaa abaar on iyo xanuun iyo dhibaato marka waxaan u sheegi lahaa dawladda iyo hay'adaha محمود صلاة آدم بردها maxamuud adiga ma geelaad gadaa mise looda أنا waxaan gadaa geela waa gartay muddo ilaa 5 sano ilaa 6 sano hadda geela ma ku dhex jiray geela bariga hore beeciisa aad u fiicnaa oo mataqaanaa aad iyo aad u beeciisa u sareeyay suuqana aad buu iman jiray ilaa iyo 30 ama 40 ay maanta hal mar waa la gadan jiray laakiin hadda ma dhacdo mar inta badan ma imaado mar neef iyo laba imaan marka uu bariyo shan neef iyo waxsaas imaan beeciisuna aad iyo aad buu u hooseeyaa sababkana waxa weeye una abaarta jirta iyo kuwa dartii in boosa u yeelaa haddii wixii imaadana beec fiican lagu helaayo aad beeciisu u hooseeyaa hadda geelan waa weyn arkaysa ee gadaasheeda taagan 10,000 iyo wax ka yar la leeyahay beeciisa abaar baa jirta in lagu dan gutaal rabaa marka raashinkina waa qaali marka hawshu saas darteed aad bay u yarada kaadinaysaa marka hadda maadaama ganacsatada aad ka mid tahay maxaa idinka idin barnaamij ah wax hadda barnaamij oo kale oo hadda aan isku keeno qorsheyna ma jiro ilaahay inuu roob keeno oo nimco la helo marka kadib barnaamij waa isfurahayaa marka muhiimaddu waxa weeye in roob la helo wax barnaamij oo abaarta intay jirto hadda la keeni karaa ma jiro